ogeysiis muhiim ah isbitaalka kalkaal ee muqdisho oo kaashanaya Faya Care Hospital farcidiisa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel wuxuu la socodsiinayaa guud ahaan dadweynaha ku nool magaalooyinkan iyo deegaanada ku teedsan in dhaqaatiirka socota kalkaal hospital ay imaan doonaan Faya Care Hospital taariikhdu markay tahay 15 January 2026 dhaqaatiirtaas oo kala ah Dr. Maxamed Faarax Xidig oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca neerfaha iyo maskaxda, Dr. Saalax Xasan Ibraahim oo ku takhasusay maqaarka timaha iyo cidiyaha, iyo Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Salaad oo ku takhasusay qalimada guud. haseegin fursadan qaaliga ee caafimaadkaaga lagu daryeelayo oo kaalay daryeel iyo khibrad caafimaad oo lagu kalsoonaan karo oo ay ku siinayaan khubaradan ka socota isbitaalka kalkaal ee magaalada Muqdisho ee imaanaya Faya Care Hospital farcidiisa magaalooyinka Guraceel iyo Dhuusamareeb. Firagaara dhaqaatiirtu waxay joogi doonaan muddo xadidan. isdiiwaan geli hadda farca Guraceel ee Faya Care Hospital kala xiriir Abriil 3 57 Abriil 7 ama Abriil 3 57 Abriil 6 farca Dhuusamareeb waa Abriil 9 22 ama Abriil 9 22 sidoo kale lamarka gaaban ee Faya Care Hospital ee ah 25 24 ka faa'iidayso wacan.